Assalaamu calaykum saaxiibayaal, halkani waa Caasim Media. ku soo dhawaada qisadii Hodan iyo Haaruun qaybteedii 5aad. Haaruun wuxuu dhameystay bilooyinkii yaraa ee ugu dhinaa waxbarashada oo asagana isla sanadka ayuu qalin jebiyey, balse jaamacadda ayaa isla intuusan imaanin ka codsatay inuu qayb ka bixiyo tababaro iyo mashaariic ay leedahay jaamacadda oo soconaya 8 bilood. laakiin hadafkiisa wuxuu ahaa in uu Hodan qalbigeeda kasbado oo uu badbaadiyo xiriirkani muddadiisu ku eg tahay dhammaadka sanadkan. Haaruun wuxuu ku qasbanaaday in uu ka qayb galo mashaariicdii jaamacadda ee ay ka waday Turkiga, wuxuuna helay isbuuc fasax ah 4 bilood oo maqnaansho ah kadib. waxa uuna soo booqday reerkiisa. Haaruun wuxuu go'aansaday inuu Hodan kala hadlo mowduuca guurkooda iyo inuu ka laabanayo heshiiskii ay galeen bilowgii guurkan. Hodan waxay ogeeday in waxa harayba iska yar yihiin, Haaruun si walba iskugu dayo inuu heshiiskii wax ka bedelana aysan u suurtagelaynin. waxa uu soo dhamaaday shaqadii iyo tababaradii ugu dambeeyay. wuxuu ku soo laabtay Muqdisho iyo reerkiisa. maalintii labaad ayuu wuxuu la fariistay Hodan, wuxuuna ka bixiyay raaligelin dhaqamadii uu kula dhaqmayay oo dhan. wuxuuna kala hadlay mowduucii guurka, balse Hodan ayaa ku tiri heshiis mar dhacay ka laabasho ma lahan. Hodan ayaa waxay ku tiri aniga mustaqbal ayaan leeyahay, waxaan rabaa inaan mashruucayga bilaabo oo aan shaqaysto. waxaan intaan u sameeyay waa walaashay darteed, intaan awoodayna waan sameeyay. waa sax, gabadha yar waa gabadhayda oo kale, welina waa ay yar tahay oo xanaano way u baahan tahay. waxaan kireysanayaa guri u dhow xaafadani si aan mar walba uga warqabo oo aysan i tabin. laakiin guurkani waa in aan soo afjarno. waxa dhiman waa 2 isbuuc. waxaan rajaynayaa inaadan igu dhibin hadal kale. Haaruun wuxuu isku dayay inuu warka si walba ugu dhaadhiciyo, laakiin Hodan way ka diiday. maamada ayuu u sheegay waxa jira iyo inuu jecel yahay xaaskiisa, qaladna uu ka galay. uu ka codsaday inay cafiso, laakiin ay diiday, doonaysana in ay kala tagaan. maamadii ayaa xal u weysay labadooda, balse waxay Haaruun kula talisay inuu hore u raaco Hodan oo doonaysay in ay soo salaanto waalidkeeda iyo reerkooda, oo uu la safro lana soo kulmo aabaheed, walaalaheed iyo eedadeed, una sheego waxa dhacay iyo sababta ay isku guursadeen. waxayna qasab uga dhigtay in ay raacaan gaari. meeshana waxaa loo soconayaa 3 maalmood, sababtoo ah waxaa jirta islaan Haaruun ayeeyadiis ah oo degan tuulo ka mid ah tuulooyinka ay maraan gawaarida safarka ah oo loo soconayo 1 maalin. waxayna la sii hadashay ayeeyadii, waxayna ka codsatay in ay ku hayso agteeda 2 habeen oo ay quraan saarto labadooda, waayo waxay rabtay in ay isa sii fahmaan oo ay Hodan ka laabato go'aankeeda. Haaruun wuxuu ogaa hooyadii in ay safarka dhulka ah u marinayso si ay Hodan iyo isaga waqti isugu helaan. Hodanna way iska aqbashay, waayo waxay og tahay in go'aankeeda uusan isbedelaynin marnaba. maalintii ay soo baxeen galabteeda ayaa waxay degeen meel wada geeda ah oo buur dusheeda ah. gaariga waxaa la saarnaa gabar baxsad ah oo ka soo baxsatay aabaheed oo doonaysay in ay tahriibto. gabadha waxaa raadinayay niman uu soo diray aabaheed oo u socday in ay soo qabtaan, waxaana loo soo sheegay nooca gaariga ay saaran tahay gabadha. gaarigii wuxuu ku dejiyey buur dusheeda si ay salaada casir u tukadaan. gabadhii ayaa rabtay in ay tukato, kadibna waxay Hodan ka codsatay inay xijaabka u beddesho, maadaama keeda ay kaga shakisan tahay inuusan daahir ahayn. maadaama cunug yar oo dhinac fadhiyay uu ku dhex matagay gaariga, xijaabkii ayay kala bedesheen oo gabadhii salaad ayay gashay. Hodanna waxay biyo weyse ah ka doonatay ceel meesha ka dhawaa, oo waxay ka soo fogaatay gaarigii iyo dadkii dhexdooda. nimanka waxaa loo soo tilmaamay dharka ay wadatay gabadha loo soo diray iyo muuqeeda sara oo weji ahaan uma aysan garanayn. Hodan iyo gabadha way iskaga dhawaayeen dhirir ahaan iyo midab ahaan. Hodanna waxay wadatay xijaabkii gabadha la baadigoobayay. nimankii hubeysnaa ayaa isla markiiba gadaal ka soo maray Hodan oo afka intay mara ka saareen gaarigii buurta dhinaceeda u yaalay ayay saarteen. gaarigii markuu cabbaar socday ayay Hodan iska tuurtay gaarigii oo waa ay carartay ayada oo dhaawac ah. nimankiina waa ay ka daba carareen. Haaruun baa isla markiiba markuu salaada ka baxay tabay Hodan oo waxaa lagu yiri ceelka geedaha ka dambeeya ayay biyo u doonatay. Haaruun wuu soo baxay oo wuxuu raadiyay Hodan, laakiin wuu waayay. Hodan siday u cararaysay ileen dhulka ma kala taqaane, waxay ka dhacday buurta qarkeeda. nimankii ayaa intay naxeen ku laabtay gaarigii yara si ay hoos uga dagaan buurta oo ay gabadha u raadiyaan haddayba nooshahay si uu aabaheed uga qaylinin. Haaruun wuxuu ku waashay in uu ku qayliyo magaca xaaskiisa Hodan, oo wuxuu waayay cid aragtay meel ay ka baxday. wuxuu ku cararay meel walba iyo luuq walba. ceelkii gudaha ayaa loo galay, balse waa laga soo waayay.
gaarigii ay saarnaayeen meesha ayuu ku baryay habeenka oo raggii kale waxay bilaabeen in ay Haaruun la baadi goobaan Hodan. Gabadhii aabaheed ka soo baxsatay war kama hayso in ayada la raadinayo oo waaba iska daacato waxayna sidataa xijaabkii ay Hodan ka bedelatay. halka inoo joogto daawadayaal qaybtii shanaad ee qisada Hodan iyo Haaruun. la soco qaybtii xigta hadduu Rabbi dhaho. haddii aad channel ku cusub tahay nagu soo beer oo subscribe tan intaan kulmayno muuqaalkani mid ka xiga sidaas iyo nabadgelyo.